waxaa goordhow xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya si rasmi ah ugu furmay shirka golaha wadatashiga qaranka waxaana shirkan ka qayb galaya maanta madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdilcasiis Laftagareen madaxweynaha maamulka Hirshabelle Cali Guudlaawe halka uu shirkan uu ka maqan yahay madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe sidoo kale shirka waxaa jooga madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamza Cabdi Barre ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Saalax Jaamac iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Sheekh Yuusuf Madaale shirkan ajando weyn ma lahan maanta sida wararka ay sheegayaan maadaama shirkan uu ka maqan yahay madaxweynaha maamulka Jubbaland oo hore shirkan u qaadacay laakiin wararka ugu dambeeyay ee laga helayo xarunta madaxtooyada ee Soomaaliya waxay ku waramayaan in madaxda hadda ay ku sugan yihiin xarunta madaxtooyada ajando weyn oo soo horyaali markan maadaama ay ka qoosteen madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe kulankan maanta xilligan ugu soconaya xarunta madaxtooyada Soomaaliya ee madaxda maamul goboleedyada iyo sidoo kale madaxda dawladda federaalka Soomaaliya ayaa qorshuhu waxa uu yahay in ajandiyaal dhowr ah looga hadlo ay ka mid yihiin arrimaha ammaanka la dagaalanka al-shabaab doorashooyinka iyo qodobo kale dhinacyada qaar ila wareedada ku sugan xarunta madaxtooyada Soomaaliya waxay xaqiijinayaan in shirku uusan nuxur fiican uusan lahayn sida ilaha xoogagaalka ay xaqiijinayaan laakiin ma cadda in shirkan natiijo hordhac ay ka soo bixi doonto in kale maadaama shirkan maanta uu furmay madaxda dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada uu dab kulul uu ku shiday madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni laakiin maalmaha soo aadan ayaa qorshuhu waxa uu yahay in go'aan rasmi ah laga soo saaro shirka golaha wadatashiga qaranka saaxiib yaal waxaan ka codsanaynaa in channelka galka media subscribe saartaan si aad u heshaan wararka ugu dambeeyay macluumaadka halkan ay soo gelino waa maasantiin wuxuu ku soo kordhaa warkan shirkan hadda soconaya waxyaabaha looga hadli doono waxyaabaha diiradda lagu saari doono halkan ayaad kala socon doontaan haddii la yiraahdo